رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله. متى قف جعل ganacsiga amba se ku dhex jira mataay sidoo kale qof fikrad hal abuur ganacsi haya oo doonaya inay fikradiisu noqoto mid guuleysata. haddaba hadday tahay jawaabtaadu haa, waxaan halkan kugula wadaagi doonaa 5 dhaqan amba caado oo hal abuurayaasha ganacsi ee guuleysta ay ka wada siman yihiin. haddaba intaynaan u guda gelin mawduuceena, waxa xasuusiniga inaad subscribe tiraado kanaalka si aad u heshid muuqaal kasta oo aan soo gelino. muuqaalkeenan maantana like dhe mahadsanid. haddaba hore aynu ugu soconno mawduuceena. qof walbaaba waxa uu jecel yahay inuu horumar ka gaaro wax walba oo uu ku hawlan yahay, haddii ay ahaan lahayd goob shaqo amba hal abuur uu la yimid. iyadoo ay sidaasi jirta, haddana qof walbaaba kuma guuleysto inuu ka miro dhaliyo noloshiisa, oo waxaa jira caqabado badan oo ka hor imanaya qofka. ganacsiga ayaa ka mid ah haddaba meelaha ay dadku guuldarooyin weyn kala kulmaan marka ganacsigooda uu guuleysan waayo amba uu gaari waayo kobicii ay rabeen. waxaa sidoo kale aad arkaysaa ganacsi muddooyin sanooyin ah furnaa oo haddana aan dhaafin halkii laga soo bilaabay. guusha ganacsiga amba guuldaradu kuma xidhna dukaanka amba dhismaha ay alaabtu taalo, balse waxay ku xidhan tahay hal abuuraha ganacsigaasi kala wada ee maamula. sidaasi daraadeed, qormadan waxaan idinkula wadaagi doonaa 5 caado amba dhaqan oo ay ka wada siman yihiin hal abuurayaasha ganacsi ee guuleystay, si dadka ganacsiga ku jira amba jecel inay ganacsi bilaabaan ay uga faa'iideystaan oo ay isku dayaan inay caadooyinkaasi ay la yimaadaan. qodobka koobaad waxa weeyaan, guuldarada waxay u arkaan wadada guusha loo sii maro. mararka qaar waxaa dhacda inuu qofku ganacsi bilaabo isagoo doonaya inuu wax san khasaaraha la kulmin. markuu khasaaro uu la kulmana, ganacsiga ayuu xidha oo uu joojiyaa. balse hal abuurayaasha guuleysta sidaas ma aha, oo waxay aaminsan yihiin guuldaradu inay tahay marxalad u baahan in looga gudbo dhabar adeeg iyo dadaal. waxayna u arkaan guuldarada amba caqabadaha inay taagan yihiin albaab walba oo ay guuli ku jirto. qodobka labaad, waxay shaqaalahooda ka dhigtaan dad dhiiran oo karti leh, aqoona leh. ma jiro qof kaligiis wax walba qaban kara, waxaana isku xeeraan oo ay soo dhaweystaan dad hawlkar ah oo dhammaystira waxa ka dhiman, sidoo kalena kor u qaada samcadda ganacsigooda. dadka ay soo dhaweysanayaanna uma fiiriyaan jinsi, midab amba qolo midna, balse waxay ka eegaan afkaarta, kartida, hufnaanta iyo sida ay dadka ay soo dhaweysanayaan uu ganacsigooda uu guul u gaarsiin karo. qodobka saddexaad, waxay jecel yihiin inay jawaab ka helaan macaamiishooda. hal abuurayaasha ganacsi ee guuleysta ma daneeyaan oo keliya inay macaamiil badan helaan oo ay faa'iido ka sameeyaan, balse waxa u soo raaca taas inay macaamiisha ka helaan jawaabo ku saabsan adeega iyo badeecooyinka ay iibinayaan. arrintaasna waxay u suuro gelisaa inay mar walba ay sii horumariyaan adeega ay bixinayaan. haddii aanay macaamiilka weydiin sida u arko badeecooyinka iyo adeega shirkadoodu bixinayso, bari wuxuu heli doonaa macmiilku qof kale oo weydiiya cabashadooda kadibna tixgeliya. qodobka afraad, xiriir fiican ayay samaystaan. hal abuurayaasha ganacsi waxay wanaajiyaan xiriirka ganacsatada la midka iyo kuwa ka duwan, waxayna isku dayaan inay xiriir fiican la yeeshaan ganacsatada adeega ay bixiyaan mid la mid ah bixiya ee ka jira wadamada caalamka, si ay uga helaan waayo aragnimo iyo garab ay uga helaan. waxayna u arkaan xiriirkaasi amba si ay aaminsan yihiin inuu yahay mid guul gaarsiin kara iyaga. qodobka shanaad, waa dad dhiirigelin badan. waxaynu aragnaa imaka shirkado guddoonsiinaya shaqaalahooda abaalmarino qaaliya. arrintaasna waxa ku dhex duugan xikmado weyn. haddaba hal abuurayaasha ganacsi ee guuleysta waa dad dhiirigelin badan oo shaqaalahooda u mahad celiya oo dareensiiya inay wax weyn qabteen. mar walba oo ganacsigooda uu guul gaadhana la taaban karo, waxay siiyaan shaqaalahooda abaalmarino qaaliya. sidoo kale ereyada mahadsanid,
hawl fiican baad qabateen la'aantiin guul lama gaareen iyo waxa la midka aad ayay ugu dhahaan shaqaalahooda maalin walbana taasi waxay u suuro gelinaysaa ganacsigoodu inuu noqdo mid najaxa shaqaalahooda waxay u noqonaysaa kuwa si xooga u dardargeliya shaqada waayo waxay og yihiin cidiisu hufan u shaqeysa inay madaxdooda abaal weyn uga hayso abaalmarino guddoonsiinayso oo ay maamuusayso haddaba in la dhiirigeliyo shaqaalaha oo loo mahad celiya waa waxyaabaha uu ganacsigaagu uu guul weyn ku gaarayo ama businesskaad ku dhex jirtaa ama shirkadaaduba ay guul la taaban karo ay ku xaqiijin karto haddaba waxaa loo baahan yahay shaqaalaha dhiirigelin aad u samaysid oo abaalmarin aad siisid si ay shaqaaluhu kartidooda iyo awoodooda ay u sii labalaabaan shaqadaaduna u noqoto mid aad iyo aad u fiican adeegaaguna u noqdo mid aad u hufan haddaba qodobkaasi waa qodobka ugu dambeeyay barnaamijkeena iyo mawduuceena maanta intaan ku kulmi doono mawduuceena mawduuca xiga waxaan idinkaga tegayaa meel walbaad caalamka ka joogtaan amaana Allah